asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaasheeda qaaliga meel walba daafaha dunida aad ka joogtaan waxaa idin leeyahay ku soo dhowaada janaalkayga Emras. waxaana maanta rabaa inaan idin soo gudbiyo taxane ku saabsan taariikhda Soomaaliya, xorriyaddii laga soo bilaabo 1960kii ilaa iyo 2009kii. taariikhdaasi taxanaha ah ayaa waxaan u soo qaadan doonaa qayb. fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalkeena waxaa lagaa codsanayaa in aad subscribe saarto, asxaabtaadana aad u gudbiso si aad ula socoto barnaamijyada halkan aan ku soo gudbin doono. xorriyaddii iyo midowgii dadka Soomaaliyeed ayaan maanta ku bilaabi doonaa laga soo bilaabo 1960kii ilaa 2009ka. inkastoo aanan kulligeed soo wada qaadan doonin, laakiin qaybta koowaad ayaan hadda soo qaadan doonaa. xorriyaddii midowgii dadka Soomaaliyeed qaybta laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii 19aad ay gumaysigan jireen Ingiriiska iyo Talyaaniga. 1960kii madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya waxaa noqday Aadan Cabdulle Cismaan Daar Aadan Cadde, waxaana uu madaxweyne ahaa ilaa Juun 10kii 1967, markaas oo doorasho uu madaxweynenimada kala wareegay Cabdirashiid Cali Sharmaake. Aadan Cadde waxa uu noolaa intii u dhaxaysay 1908 ilaa Juun 8, 2007. Janaayo 1962 Nelson Mandela ayaa u mahadceliyay 4 waddan oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Mandela waxa uu ku khudbadeeyay shirka Pan Africa ee lagu qabtay Addis Ababa, asigoo u mahadceliyay 4 dal ee Afrika xilligaasi ka mid ahaa dalalka xurta ah, kuwaasi oo kulankaasi joogay, kuwaas oo ahaa Soomaaliya, Itoobiya, Suudaan iyo Tanzania. waxa uuna Mandela dalalkaasi uga mahadceliyay sida ay cunaqabataynta siyaasadeed iyo midda dhaqaale u saareen dowladihii markaasi midabta koorka ku haystay Koonfur Afrika, iyo sida ay dalkaasi magangelyo u siiyeen qaxootiga reer Koonfur Afrika. 1967 Juun 10keedii waxaa Soomaaliya madaxweyne ka noqday Cabdirashiid Cali Sharmaake. Oktoobar 15keedii 1969kii ayaa la dilay Cabdirashiid isagoo booqasho ku maraya Laascaanood. Cabdirashiid Cali Sharmaake waxa uu noolaa intii u dhaxaysay 1919kii ilaa Oktoobar 15keedii 1969kii. asxaabteeda qaaliga, qaybtii koowaad ee taariikhda taxanaha ee xorriyaddii Soomaaliya halkaas ayaanu ku soo koobayaa. tan iyo intaan ku kulmi doono qaybta labaad ee xigta qaybtan, waxaa idin leeyahay sidaa iyo ammaan Allah.